gabadha dhahda marka ninkeedu markuu cadhoodo wallahi inaanan cunto aanan cunahayga marinaynin hurdana aanan ku indha kuulanaynin ilaa aad iga raali noqoto. allahu akbar. reeraheenna maanta midda lala-yahay waa midda wallahi inaanan indhana ku indha kuulanaynin hurdo inaanan ku indha kuulanaynin cuntana aanan halkaa marinaynin ilaa aad iga raali noqoto. markaad zawjkaaga dhabanka ka salaaxdo oo aad intaa ku dhahdo ma u malaynaysaa inuu ku hilmaami? maya. marka waa gabadha sabarka badan ee dulqaadka badan ee cadhada qarsata ee xilmiga iyo dulqaadka ku tilmaama gabadha ayna raggu marna hilmaamin. midda saddexaad waa gabadha markay qosasho muusood qosolkeedu uu yahay. waa gabadhan qosolkeeda deriska laga maqalee hanqalaalka yacni cunaha gudihiisa dhag 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 aan dhihin weeye yacni gabadha qosolkeedu siduu u gaaban yahay, hadalkeeduna u kooban yahay, xishoodkeeduna u badan yahay, waa gabadha muusoodkeedu un qosolka muusoodka ku gaabsata. taana weeye midda dee nabigu sal ly salam weligii lama arkin baa layidhi gudihiisa cunaha lama arkin calayhi asalaatu wassalaam. marka gabadhu say u xishoon iyo sida ay codkeedu u gaaban yahay waa gabadha ilkaheedu un in yar laga arkayo. gabadhaasi markuu muusoodka ninku soo xusuusto oo u arko gabdhaha qoslaya ee qosolkooda meel laga maqlay ee deriska waxa weeyaan gabadha aan la hilmaamin weeye. qodobka kale waa gabadha idaa sanacat shay-an jawadad. waa gabadha hadday damcdo inay wax samayso sugata. hadday cunto samaynayso way sugi. hadday guriga samaynayso goglaysa si cajaa'iba bay u sugi. shay walba meel fiican meeshii loogu talagalay bay dhigi. tartiibka guriga ayay si wanaagsan u taqaanaa. marka waa gabadh gaariyada markaan warka idiinsoo koobo waa gabadh gaariyada oo daqsiga gurigeeda soo gala 3 sano xadhiga u jaraysa. waa gabadh gurigeedu carfoon yahay oo dharkeedu carfoon yahay oo jirkeedu carfoon yahay oo shay walba waktiga ku macaan iyo sida ugu macaan iyo qaabka ugu macaan u qabata. kala qarisa wixii ceeb qarisa wixii wanaag ana banaanka soo dhigta. waa gabadha ayna marna raggu hilmaamin. qodob igu dheeraan doona laakiin waan tilmaami doonaaye waa gabadha zawjkeeda ateecda. waa gabadha zawjkeeda maqasha. laakiin qodobka maadaama uu yar dheer yahay mar dambaan asaga ku soo noqon doonaa. waayo itaacatu zawja lizawjiha waa meel aad iyo aad muhiim u ah. gabadha zawjkeeda ateecda waa gabadha. qodobka kale waa gabadha qoyska ninka iyo qoyskeedaba masalan lagu soo hirta marti iyo mudanada ay jecel yihiine mar alla markii ay reero lagu soo baxo war gabadhaan noo geeya, war qoyskaa noo geeya, gogol wanaagga, cunto wanaagga, weji furfurnaanta, soo dhowaynta marti iyo mudana say gabadhu ugu roon tahay. qodobka ugu dambeeyoon ku khatimayana waxa weeye intaasoo dhan oon soo sheegnay waa gabadha ku tilmaamane haddanana aan isla weynayn ee u haysata dadka ka ugu liita, dadka midda ugu hadal xun ama ugu dulqaad badan ama ugu qosol dheer ama ugu gaari xun basariyada ah ama ninkeeda aan maqal ama qoyskeeda iyo qaraabada aan u roonayn. waa gabadha ayadu isu haysata een moodaynin inay tahay midda waxan oo dhan dul martay si uusan kibir ugu soo gelin. saa daraaddeed waa gabadh addaliilatu fii nafsihaa. nafteeda way isla liidataa oo waxay leedahay talow gabadh kaa liidata oo kaa cibaada xun